أصحابي بكورنا النبي عليه الصلاة والسلام نبيه وحكوا مقلني أديكو صدح جير آمين 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 لا يعني محاد وجهه أو كله ويسؤالين كان النبي عليه الصلاة والسلام حكورنا يا ملك جبريل أي إيمدي وحيقولي قفكي رمضان يوجو صوغشو رمضان قفكي يوجو صوغشو أون لو دم دافن إلهي نار تاكو فوقيو آمين ده يعني نبي كله آمين ده مركز النبي عليه الصلاة والسلام أرنا يا آمين talabaad ku waxa weeyaan qofkii waalidkiis uu u nool yahay labada waalid ama saxaabad ama labada waalid haduu u nool yihiin oon biri u ahayn oon waxba u qaban oon waxba u tareynin oo dimaad aragtay casi ku noqda in ilaahay naarta ku fogeeyo aamiin de markaas uu nabigu ka daba oranaya aamiin tasaddexaadna waxa weeyaan waxa nabigu lagu oranayaa qofkii isagoo meel jooga goob fadhiya meel de jooga oo magacaaga maqla oo aan kugu saliyin isagana ilaahay naarta ku fogeeyo aamiin de markaas uu nabigu oranaya aamiin allahumma salli wa sallim ala sayidina muhammad markaas asxaabay saddexdaaba waxa weeyaa waa xadiis saxiixa in hatta caafimaad qabto qofkii dimaad aragtay rabadaanta ay ku soo gaadho xanuunsanaya cudur daar ayuu leeyahay la ikraha fi diin buu ilaahay yiri marka aad xanuunsanaysid wado waxa jirta la marayo qof bad qoodinaysa oo saasay u kaaga baxaya insha Allah laakiin hadii caafimaad qabtid ilaahay baa umada u xanuuniye insha Allah u degdegina soontid hadaad soonto qulubta ilaahay baa akhriye inagoo soomana waxa dhici karta malaha in khaladaad u jiro insha Allah wayna dadaalna halka waalidku waa qaali wallahi haduu ku nool yihiin ka faa'iideyso waxaan anagu magaalada ugu soo noqnoqonaynaa waa energy baan ka helanaa waalidkeena qiimka ducada ka gurano waayo waxaad waalidkaaga u qabato awlaadaada ayaad ka helaysaa hadhow tole marka hadii ku nool yihiin ka faa'iideyso waayo markaad yarada xoolka ku jirtay ilaa intaad weynaanaysay adigu bay ka fikirayeen waxaad cunayso waxaad ku labisanayso hadaad xanuunsato wixii dawo lagu keeni lahaa marka maanta waa waqtigoogii weeyaan wayna nasisid yaa hatta dad arday tahay intaad guriga joogto kubaayada biyaha soo hordhig cuntada soo hordhig lugaha u duug lugaha biyo fardiiriso lugaha u gali u duug kareem u mari biyo si u sheekay yani ka faa'iideyso wallahi inta ay nool yihiin hadhow tole saanadu qiiqateen dambina ay kugu noqon wata uu nabiga bay yiri aamiin qofkan waalidkiisa birigu ahayn aamiin waa kala yiri yaa marka yani naata lagu fogeeyada waa ka aamiin iri nabiga kaleey salaam marka waalidkaagu hadii nool yihiin ka faa'iideyso hadii ay tii ilaahay u noqdeenna waxa yaalaha u socda ee ka daba tagaya waxa kamida in walad saalixa gabadh ama wiil saalixa ay ka tageen oo u duceynaya oo sadaqad u bixinaya oo mar walba ilaahay u weydiinaya dambi dhaaf wax walba waalidkaaga u qabato hadii xitaa koonkan ay ka tageen uu u tagaya marka insha Allah haday saasi jirtana u ducee sadaqad u bixi isna mar walba adoo sujuud loo hayo ducee hadii nool yihiina imika ka faa'iideyso u degdeg insha Allah nabiga marka la soo hadal qaado kaleey salaam marka salabigiina aan ku salino mar walba maqasho magaciisa iyo markastoonad maqlin ba hadaad mar walba ku celiso saliga nabiga baraka badan baa la socota san rabina isxasuusino waa jimce maanta ka faa'iideysta familka hooyo aabo ciyaalkaaga reerkaaga in maalinta jimcaha waa maalin guriga la wada joogo inuu qalbiga la isku nadiifiyo la isku xaaro ina qalbi nadiif oo saliima oo farxad ku jirto lagu la dhaqmo xaafada dhexdiisii adayga iska ilaaliyo odayaasha rasanka taagtaagayo habla afka yar taagtaagayo waxa iska daaya xaafada niyad san oo wanaagsan oo fiican awlaadii loogu qaslo labadii qof ay isqabeysku qaslaan xaafada ma daragtay dabacsani badan farxad badan ay ka muuqato dadkii iyo darisko loo wanaagsanaado aakhiro laga fikiro adduunyo bilaash asxaabay badan oo akoonyadu u buuxeen oo qurux badnaa oo wax aliye waxay ka maqayaan jirin ayaa habeen madow saa looga dhex qaaday adduunka alaabtoodina halkan bay taala adduunkan bay kaga tageen dad kala u cunaya dad kala ku xaragoonaya dad kala haysta marka tani waa transit ma fahanteen marka insha Allah khayrkaas xasuusinana aad baa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh